بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بلشدة الصوماليات meel kastaad ka joogtaan daafaha caalamka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii tixanaha ahay ee ku saabsanaa ama la xiriiray sarbeebaha af soomaaliga tixanahan isaga ah alaab waxaan ku soo qaataa sarbeebaha af soomaaliga marba qayb ayaan soo qaataa caaw waxaan jeclahay inaan idinla wadaago sarbeebaha af soomaaliga ee la xiriira diidmada sarbeebaha af soomaaliga ee la xiriiro waxa la diidan yahay ama diidmada la xiriiro runtii ma u baahni inaan sharaxo sarbeeb hore ayaan u sharaxay sarbeebtu waa erey macnaha ama qeexid macnaha muuqdo mooye qeexid kale oo labaad leh waa erey ama wed qabyo ah oo macnaha muuqda mooye macno ka hooseeya ama qeexid ka hooseeya ee leh ayaa la yidhahaa sarbeeb waxaan ku bilaabayaa sarbeebta koowaad ee caawan idinku talagalay waxaa waaye dhaga uma daloolaan dhaga uma daloolaan macnaha hoos yimaada waxa waaye dhaga dula haddii macnahan aad fiiriso dhaga uma duleelaan macnaha waxay watahay dhaga la duleeliyey ama wax laga dhex bixiyey ama dhaga duran laakiin macnaha saxda waxa waaye wax ma maqlo qof dhaga adag wax maqlin tusaale wiilkaas mid wax maqla dhagana u daloolaan ma aha sarbeebta labaad waa looga bannaan qaaday marka weedhan iyada ah markaa fiirisid macno ayay leedahay hadda waa looga bannaan qaaday macnaha bannaana laga qaaday laakiin macnaha hoos imaana ama qeexidda dhabta ah ee sarbeebtan gudbinayso waa laga quustay qof wax maqli waayey tusaale rag iyo dumarba inta laysku tegay baa looga bannaan qaaday sarbeebta saddexaad dheg uma dhigin macnaha dhabta ah ama qeexidda dhabta ah waxaa weeye uma dheg raaricin ma dhegaysan maqlid la'aan tusaale cali beentiisa horaan ugu daalay dheg uma dhigin warkiisa sarbeebta afraad waa faraha laga qaad qof xun qof fiicnaan looga quustay qof xumaan faraha looga qaaday tusaale dadka qaar ayaa markii lasoo hadal qaado durba waxaa lala soo boodaa warkaas ama taas naga daaya waa faraha laga qaadiye sarbeebta shanaad waxay tahay dhabarkaa loo duway qeexidda dhabtaa ee sarbeebtan leedahay waa laga jeestay wax loo diiday la rabin wax loo diiday la rabin tusaale markaan dukaanka soo galnay gabdhihii ku jiray dhabarka ayay noo duween sarbeebta lixaad waxay tahay dhabarkaa laga tuuray wax la diiday dan lagama gelin wax la nacay tusaale maamulaha cusub ee dugsiga sare dhabarka ayuu ka tuuray wixii
xeer ahaa ee hor u jiray wuxuuna la yimid mid cusub. sarbeebta ugu dambeysa oo aan jeclahay caawa inaan idinla wadaago waxay tahay waa ka gows qabsaday. macnaha hadda muuqdo sarbeebtan iyada ah sidii muuqato gooska ayuu qabsaday ee noqonaysaa waa ka gows qabsaday ama wixii la sheego goos ka qabsaday, laakiin qeexidda dhabta ah ee sarbeebtu leedahay waa diiday inuu wax ka sheego, ka faallooda, waa ka gaabsaday. tusaalooyinkii uu madaxweynuhu soo jeediyey xildhibaanada iyo golaha wasiirada lama aysan ahayn in tusaalooyinkani noqon doonaan kuwo bulshadu u guuxdo, waana ka gows qabsadeen. barnaamijkan imtixaanaha ee ku saabsanaa sarbeebaha af Soomaaliga caawi halka ayaan ku joojinayaa. inta aan ku kulmi doono kulan dambe oo xiiso leh waxaan iska codsanayaa in aad sarbeebahan ama cashiradan la wadaagtaan waalidkiin, wadaay iyo walaalba si looga faa'iidaysto cashiradan af Soomaaliga ah ee aan soo gudbinayo. hadday suurtagal inaad noo saartid bogotahay ama wax afka ingiriisiga lagu yidhaaho like, la wadaag asxaabtaada. waa istaad farxooda leh. kulan dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.